saddexdii sano u dambeeyay waxa ay shirkadaha moobiladu ay sameeyeen isbeddel aad u weyn taasoo ka dhigaysa in moobilada sida tusaale display-googa iyo kale uu xajmigiisa aad u weynaaday dhinaca kale haddaynu eegno storage-kii iyo RAM-kiiba uu xaddi ahaan uu kordhay dhinaca kale haddaynu eegno baterigii markaynu u eegno kuwii hore uu aad uga badan yahay taas waxay ka dhigaysaa qof kastaaba jeebadiisa ay ugu jirto computer yar haddaba ku soo dhawaada barnaamijka teknolojiyadda ee Muraso Technology Review taas maanta ku eegi doono moobilka la yaqaano S10e inta badan moobiladan dambe ee la soo saaro waa moobilada xajmi weyn yahay haddaba moobilkan S10e waa moobil isagu marka moobilada kale loo barbardhigayo ka kooban ama ka yar haddaba haddaynu eegno moobilkan kooban bal cabirka display-giisu inta uu noqonayo cabirka display-giisu waa 5.8 inch taas ka dhigaysa moobilkii moobil yar oo kooban sidoo kalena si fudud ugu qaban karaysid gacanta dhinaca kalena hadda featureska uu leeyahay moobilkan haddaynu eegno moobilkani sida moobilada kale ee S10ka ma laha on display fingerprint laakiin moobilkan waxa uu ku leeyahay fingerprint-ka power button-ka ayuu la socdaa taas oo moobilkan ka dhigaysa in isla marka aad taabatid power button-ka uu si fudud oo aad u dhaqsiyo badan leh uu kugu furayo haddaba featureska kale uu leeyahay power button-ka haddaynu eegno moobilkan marka doonaysa inaad notification ka tagtid inta badan waxay noqotaa in display-ga xaggiisa sare soo jiidno haddaba moobilkan S10e waxaad u isticmaali karaysaa oo ku fududeynaya inaad power button-ka aad iron hoos u soo jiidi doontid moobilkan S10e waxa uu kala siman yahay moobilada kale ee S10 series-ka sida dhinaca processor-ka dhinaca wireless charger feature-ka dhinaca water resistant-ka selfie kamarada iyo sidoo kale dhinaca internal storage-ka haddaynu eegno haddaba waxyaabahan ka siman moobiladan S10ka iyo S10e-gu dhinaca kamarada haddaynu eegno moobilka S10ka waxa uu xagga dambe ku leeyahay 3 kamarado laakiin moobilkan S10e waxa uu leeyahay 2 kamarado ka dhinaca waxaanu ka fahmaynaa in hal kamarad amba hal lens uu ka dhiman yahay moobilkan S10e-ga haddaynu eegno dhinaca bateriga moobilkan S10e waa uu ka hooseeya dhinaca cabirka moobilada kale ee S10ka kaasoo ka dhigan moobilkan S10ku inuu ka sareeyo moobilkan kale S10e-ga haddaba moobilkan yar kooban waa moobil aad ku helaysid qiimo aad u jaban weliba qiimihiisu imika waxa uu ka hooseeyaa 550 taasoo ka dhigan haddii aad moobilka iibsatid qof sita moobiladan S10ka dhinaca kalena ku helaya qiimo aad u jaban